السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقيستيال ظهر وعنو وناكسن كسو دوادا برنامج كفاقداد الراديو هوات كلا سعوتان شبكة ورباهنت الراديو قال كعي بونتلان سوماليا وضبدا برنامج كفاقداد الراديو همان تاad ku dhageysan doontaan waxa kamid noqon doona magacaygu waa Cawl Maxamed Cabdi waxaan ahay agaasimaha raadiyo Gaalkacyo ee fadhigiisu yahay magaalada Gaalkacyo xaqiiqdii haddaan ka waramo xurriyadda saxaafadda ama suxufiga runtii bay'adda aynu ku shaqeyno iyo deegaanka aynu ka howlgalayno iyo shaqada aynu hayno waa wax aad u kala dheer oo farqi weyn u dhaxeeya suxufiga marka la yiraahdo waxa uu suxuf u yahay waa inuu runta sheego cadaaladda sheego bulshada u soo gudbiyo wixii xaqiiqada ku salaysan isagoo aan ka tageyn inuu wax walba ka noqdo cadaalad dhexdhexaad sinaan si ay bulshada uga maqsuudo waxa uu tabinayo ama wakiilka uga yahay inuu runta ka sheego waxaan ognahay suxufiyiintu in badan oo kamid ah inay u dhinteen xurriyadda hadalka suxufigu waxa uu leeyahay xadkaas oo ogolaanaya inuu ka sheego waxa xaqiiqada ah waan ognahay marka aad saaka u hadasho si xurriyad leh oo sharciga iyo qaanuunka saxaafaddu ku ogol yahay inay dhacayso in lagu soo hanjabo telefoon lagu soo diro message lagu soo diro ay dhacdo xataa in qaarkood aysan wax fariinaba adag kala kulmin guriga lagaaga hormaro lagu galo lagu sigo hadii aadan ba dhiman waan ognahay saaxiibadan in badan oo kamid ah oo dhintay inay u dhinteen xurriyadda hadalka iyagoo xaqiiqda ka sheegaya wararka jira waan ognahay inaysan cidina ka qoslinayn reportka ama warka saxda ah ee aad ku salayso xurriyadda hadalka ee aad dhinac kasta u dheelitirto waa maalin farxad leh 3 May waa maalinta xurriyadda saxaafadda haddana bay'adda aanu joogno waa maalin ayna muujin karin inay naga maqan tahay xurriyadda hadalka ma jirto xeer idin dhaxa adiga iyo ninka aad warka ka sheegtay warka aad sheegtay oo xaqiiqda ku salaysan ee runta ku salaysan qof buusan ka qoslinayn qofkaasi waxa dhacda mararka qaar inuu ka gudbo xaddigii idin dhaxeeyay ee laga yaabo inuu kumishimo laga yaabo inuu dhibaatada ka shaqeeyo laga yaabo inuu ku fakrinaado maalin dambe oo warka sheegin bay'adda deegaanka aad ka howlgalaysan waxaan saxaafadda caalamka ururada caalamiga ee saxaafadda arrimahooda ka shaqeeya iyo dhinac kasta oo ay khusayso saxaafadda arrimaheedu aan ka codsanaya in ay ka shaqeeyaan sidii dalka Soomaaliya iyo deegaanada ku hareeraysanba looga hirgelin lahaa looga dhaqan gelin lahaa in saxaafaddu ay si madax bannaan oo xor ah u shaqeysato iyagoo ku jidaysan habkii saxaafadda saxda loogu talagalay dhowrayna anshaxa iyo nidaamka markasta waxaanu maqalnaa wariyaa dhintay wariyaa la xiray wariyaa la jirdilay dhammaan waxaan ognahay asbaabahaas inay salka ku hayaan xurriyadda hadalka oo aysan cid kasta raalli ka ahayn aad baa mahadsantiin